fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. habeen wanaagsan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiibayaal meel waliba oo caawa caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada caawa iyo ciyaarihii qodobo badan baa noo soo socdaan kusoo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo ay ku jiraan kala iibsiga ciyaartooga ciyaarihii maanta la ciyaaray Messi oo wax badan ka fogaaday maanta in kabtiisa lagula dagaalo Mbappe waxa la yiraahdaa awooday soo qabo Messi oo wax kaleeyay galabta iyo waliba Real Madrid oo ceeb ku baxday xilli ciyaareedka Gareth Bale oo loo sameeyay way macsaamo iyo qodobo kale oo ku soo qaadan doona Captain Company oo Man City isaga tagay 12 sano kadib iyo kooxda uu ku biiray oo tababara iyo ciyaaryahan buu ka noqon doono ciyaarimo kale oo cajiib ayaan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartooyga kooxda Manchester United Erdogan iyo Ozil oo markala kulmay ilaa hadda Ozil wuxuu ku dhex jiraa fadeexada ku aadan iyo siyaasad dhexda ka galayo oo uu la kulmayo nimanka siyaasadda ugu waaweyn ee caalamka iyo qodobo kale baan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan arimaha Leo iyo galabtu waanu soo qaadan doonaa Messi odagu galabtu waa kaayo kota gool kor u dhaafayo xilli ciyaareedkan odagu xilli ciyaareed fiican buu qaatay laakiin Barcelona baa ku ciyaartayo maradu ka riday waa nin hadduu isagu ka jiifayo aan shaqaysanin akhbaaradka baa noo socda iyo ceebta ku dhacday Madrid oo Real Madrid ceeb caleeg bay xilli ciyaareedka ku soo gabagabeeyeen warka baan eegi doonaa haddaba wararka ugu waaweyn caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah Real Madrid ciyaartooyda Gareth Bale maanta waa loo diiday in kulankii ugu dambeeyay lagu macsalaameeyo Santiago Bernabeu iyadoo Madrid looga badiyay 2 gool iyo eber ayaa waxa la islahaa Bale maanta ayaa lagu macsalaameynaya Bernabeu wuxuu heli doonaa fursad uu taageerayaasha ku macsalaameeyo laakiin fursadda waxa uu diiday Master Zidane keedka ayaa lagu soo bilaabay maalintii ugu dambeysay ee Madrid uu macsalaameyn lahaa haddana waxa la islahaa بدل بكو سو غلي دونا حتى بدل كوا لو ديدايو انو مانتا بدلka xataa ku soo galo Zidane iyo Bale meel xun bay ka kala mareysaayo Zidane marna ma jecleen asagu taageero uma wahaynba Zidane ninka kan uu iliraado Gareth Bale waligiiba ma jecleen inuu kooxdan kubadda cagta Real Madrid uu sii joogo Master Gareth Bale waxaana shalay isku dhacay ninka la yiraahdo Valentino Perez iyo waliba madaxweynaha kooxda Zidane wuxuu Perez u sheegay warniyo Perez baa liri kooxda anigu iyo madax banaanay Bale saf iyo Bale cimaamad iyo ma jirto leeyahay yani waxa uu diidayaa arimaha kooxda lama soo faragashan kartid baa lagu yiri ninka la yiraahdo Valentino Perez hadii ay noqoto ciyaaryahan la soo iibsanayo anagu baa tilmaamanay rag aan soo iibsanayo aniga baa dooranaya ciyaaryahanada aan soo iibsanayo ciyaaryahanada aan safayna aniga baa dooranaya yani waxa la siday madaxweynaha Real Madrid wuxuu aad u rabaa in uu ciyaaro la ciyaarsiyo Master Gareth Bale taasna waxa ay keentay in Zidane uu aad arika ugu dhiidhiyo uu diido maxay yeelay Zidane ma jeclan ninkan Bale maantana Bale uu u diiday inuu ciyaaro kawana Zidane maanta Bale oo ku adkeeyay iyadoo aan ognahay Bale inuu Madrid wax badan la soo qabsaday haddana looma cimaamadin maanta maadaama uu baxayo xataa leesmarin odagu waaba socoyaay bal maanta ugu dambaysa loo cimaamada lama dhino xataa lama safin markii ciyaartu rumaatna waxa arkay Bale oo cariisano qolka bay isaga sii baxay isagoo aad u cariisan waxaana jirtay inuu ragga shaqaalaha qaarkood macsalaameeyo kooxda qolka tonalkan hore uu ka daadagay oo ka baxay Zidane oo shiri jirayd qabtay marka ciyaartu soo dhamaatay ayaa wuxuu yiri xitaa hadii maanta la siin lahaa fursad afar bedelan ciyaartu ku soo gelin lahaa Bale ma soo gelin lahayn buuri marka waxa dareemaysaa Zidane iyo Bale meel xun bay ka taagan tahay oo labadu mid baa baxaya sida ugu badan tahayna Bale baa bixi doona ninkan Bale waxa dabada ka riixayo yani taageeroon u ah madaxweynaha Real Madrid baa taageeroon u ah shalayna Zidane wuxuu yiri haddaad rabto inaan kooxdan ku joogo amaradeeda ha socdaa la yiri oo Perez baa loo sheegay waryahay Perez ma rabtaa inaan kooxdan ku sii maamulo amaridu way inay socdaan ragga la soo gadanay ana soo gadanay ana rabo ana ku dhawaaqanay ana magacaawanaya kuwa ciyaarayna ana safanaya hadad awoodaas aanu lahayna anu kooxdu baan kaga tagayaa baa leeyahay marka Bale Zidane meel xun bay may ka mareysaayo ninkii dhamaa aan maanta loo cimaamadin ee aan la macsalaameyn xataa wuxuu yiri Zidane marka ciyaartu soo dhamaatay hadii aan haysan lahaa afar bedel xitaa Bale ma soo gelin lahayn garoonku leeyahay marka waxa dareemaysaa Bale si xun buu ku baxay isaguna Madrid waxa lagu yaqaan legendtidu inaan loogu cimaamadino waqtiga xataa quruxda badan ay la qaateen inaan cimaamada lagu tuuray maalinkay baxayaan waan ragnay sidoo Cristiano Ronaldo ku tagay waan ragnay sidoo Casillas ku tagay waan ragnay sidoo Raul ku tagay kanuna meeshii uu maraya Gareth Bale ayaana waqtigiisa Real Madrid u ciyaaray 231 ciyaarood waxaana uu dhaliyay 102 gool isagoo 64 gool caawiyay waxaana uu la qaaday 13 koob oo waaweyn oo Champions League uu ku jiro marka Bale waa ka sida ayuu maanta ku waayay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo macsalaamadii ugu dambeeyna waa uu ka waayay taageerayaasha kooxdiisa oo islaha maanta ku macsalaameeyaan warar kale ugu muhiimsan caawa ciyaaraha waxa kamid ah Captain Company ayaa ka tagay Man City 12 sano la joogay kadib markuu shalay la qaaday koobkii saddexaad ee taariikhiga galay ee Man City isku wada urursatay saddexda koob hadda maanta go'aan yaab la soo baxayo waxay Man City ku dhawaaqday inuu ninkii kooxda ka tagay 12 sano kooxda la joogay waxaanu ku biiray hadda la cadeeyay kooxdiisii hore Anderlecht oo yaraantii u soo ciyaari jiray
waxaanu Anderlecht u soo ciyaari jiray 2000 ilaa 2006 waxaanu kooxdan ka noqon doonaa macallin iyo ciyaartoy soo noqon doonaayo macallin uu noqonayaa ciyaaryahan uu noqonayaa uu ciyaaraya macallin buu noqonayaayo marka xilkaas baa laga siiyay kooxdiisii hore Anderlecht oo waqti u soo ciyaari jiray waqtigii City 12 koob ayaa la sheegay inuu gacanta ku dhigayo 12 sano la joogayo marka company waa ka tagay Man City waxaana uu ku biiray kooxda wadankiisa Belgiumka ee Anderlecht oo uu tababaray ciyaartoyba isu noqon doono mar la weydiiyay company hadii uu ku dhawaaqi karo ciyaaryahanadii 12 ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaaray wuxuu cadeeyay inuu ragii ugu soo fiicnaa ee Man City kaga soo garab ciyaaray wuxuu xushtay goolka u xushay Joe Hart oo waqti isla soo shaqeeyeen Stones iyo company uu difaaca dhexe u xushay Sabaleti Clich buu dambeedka midig iyo bidix u xushay khadka dhexe u xushay De Bruyne Yaya Toure iyo David Silva weerarkan wuxuu xushay Sterling Aguero iyo Tevez wuxuu ku tilmaamay kuwa ka inay 12 ciyaaryahan ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaaray hadii uu company sida ugu tagay Man City waxay u baahan tahay in raadiso difaac adag oo ay sanadka dambe isku adkeeyaan waxay hadda Man City u qatar badan tahay oo loo kari laayay waxay haystaan keed fiican iyo ciyaaryahan line up oo ciyaaraya Pep Guardiola waa aqlilow kuwa fadhina waa qatar kuwa ciyaarina waa qatar ragaas inuu hadda xalistaa laga yaaba ayuu u baahan yahay Guardiola raggan qaar hadda way careysiin saan oo kale inuu buxuu rabaa Gundogan oo kale inuu buxuu rabaa company waa kay tagay automatic ragga qaar City micnaha waxay sanadahan ku fiicneed labada sano ku fiicneed waxay haysatay ciyaaryahan isku qanacsan kaydka iyo kayd fiican iyo rag leen abo ciyaaray bay qabeen aqligiisu inuu ku maareeyo Guardiola laakiin haddana wali wuxuu u baahan yahay inuu aqligiisu ku maareysto uu ciyaaryahanada iska babariyo wareey ciimaamadan iyo sanadkan ila sii joogo yiraahdo maxay la hadhow mid baa ka dhaawacmaya mid City ka dhaawacmo mid kale fiican baa u jooga haddaba haddii company uu kooxda ka tagay Man City waxay bedelkiisu raadin doontaa laba nin oo aad u qatar badan waxay warar ku leeyihiin inay doonaan ciyaartooyga Harry Maguire oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City iyo waliba Delight oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Ajax bartilmaameedkooda labada nin bay noqonayaan waa Delight iyo ninka yiraahdo Harry Maguire bay noqon doonaan ragga uu nimanka kanu Man City isku soo adkeyn doonaan warar ayaa sheegaya Manchester United wali inay doonayso ciyaaryahanka dambeedka midig ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee ninka yiraahdo Bache waa ninka lagu magacaabo Munier oo u dhashay wadanka Belgiumka ninkan ay doonayeen ku badashaan booska Valencia mar la weydiiyay Munier haduu Manchester United ku beeri doono ayuu sheegay inaan wali ilaa hadda waxba aan kala ogeyn halka uu xagaaga dambe ka ciyaari doono hadii kalaba yaani inuu Manchester u ciyaari doono inaan u ciyaari doonin buu ninkan u cadeeyay laakiin waxa la fahansan yahay Manchester United inay aad u xiiseynayso ciyaartooyga Munier oo nin Belgium oo qatar badana booska Valencia waa nin runtii bedeli karaya maanta mar kale haddana waxa la soo warinaya inay kulmeen madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba xidiga Arsenal ee Mesut Ozil wadanka Jarmalka ayaa ciyaaraha xulkiisu ka reebay oo yaani khalaas weyn uu kala kulmay taageerayaasha wadanka Jarmalka in mar hore uu Ozil la kulmay ninka Erdogan ah arinkaas darteed baana xulka dalkiisu Jarmalka u mucaaradeen ninkan Mesut Ozil waxaana loo arkay Ozil inuu siyaasad faraha la galayo oo uu madaxweynaha Turkiga ku taageeray doorashadii dhaweyd isaga iyo Gundogan baa sawir la galay marka Ozil waxaa kor lagu soo eedeeyay in uu siyaasad faraha la galayo oo uu Erdogan ku taageerayo doorashada wadanka uu Turkiga u galayo sidaas daraadeed mar kale bay haddana kulmeen waxaa la ogyahay Ozil inuu ka fariistay ciyaarihii wadankiisa ee Jarmalka inuu ciyaaru ka fariistay Turkiga wadan asal ahaan uu ka soo jeedo dhalasho ahaan uu ka soo jeedo Ozil mar kale ayaa la sheegay in Istanbul isku arkeen gacalisada Ozil iyo gacalisidiisaba waxay bishan Ramadaan dhexdeedaba anfur la qaateen ra'iisul wasaare waa madaxweynaha wadankan Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan ilaa hadda waxa uu la kulmayaa ninka Ozil Arsenal u ciyaara in uu isku dhex qasayo kubadda cagta iyo siyaasadda Ozil wuxuu hadda ka hor cadeeyay in Turkiga u dhalash ahaan ka soo jeedo Jarmalkana uu u dhashay marka wuxuu cadeeyay hooyada wuxuu ku dardaarmay si yiri in familka la xiriiriyo hadda ugu nacaysan igu naca Turkiga waa dadkayga waana xiriirinayaa yiri habarta Xaliim wuxuu ugu tiri yiri Turki xiriiri ehelkaagii qaraabadaada weeyaanba hadda xurka Jarmalka ma ciyaaro laakiin ninkan waxa aad loogu eedeeyaa maxaa siyaasadda ku gelinaya war maxaad kabtan banooniga inta u siibtood kab siyaasadeed u gashanaysaa sida Maxamed Qadar wuxuu yiraahdaa anu kab siyaasadeed ma rabo aniga kabtan banooniga igu filan anigu kab siyaasadeed ma rabo mana ii keeni kartiin mana gashanayo kabtas waa iga weynta aniga kab siyaasad anigu maba gashan karaba kabtan banooniga igu filan aniga kabtan maqaarka la aray ay igu filan kana iska galgalayna aan ku raaxaysanayna waxna uu qabsanaya malaha waxa ku gelinaya buuq iyo siyaasad iyo kano iyo kambalowba marka Ozil waxa laga kari leeyahay kabtan siyaasadda iska siibo wariyay kabtan Bruno ku ekaw Ozil iyo markale madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa markale kulmay iyagoo bisha Ramadaan kulan wada qaatay oo halka ku afurayo waa la yaabayahay
markana waa Barcelona iyo La Liga maanta Barcelona caawa laba gool bay gashayo Messi laba gool buu dhaliyo taas waxay ka dhigan tahay Messi inuu hadda 4 gool ka sareeyo ninka ku soo xiga ee Mbappe kale Mbappe uu hadda 4 gool dhaliso waa soo qaban karaysa Messi marka Messi maanta waa ka cararay ninka Mbappe aha laba gool buu ugu dhaliyo gool hayo inta loogu dhaxbixiyo oo si qurxoon u dhaafiyo marka laba loo dhigayo si fiican u marayo alla gaabka kan waa wax kale marka Barcelona iyo Messi galabtu laba bay galeen horyaalku waa soo gabagaboobayo Messi ayaana ku guuleystay markiisii lixaad abaalmarinta goolinta La Liga ninka ugu goolasho badan La Liga uu ku guuleystayo xilli ciyaareedka wuxuu dhaliyay 36 gool buu dhaliyo horyaalka La Liga waana markii lixaad taariikhdiisa ku guuleysanayo goolinta horyaalka wadanka Spain marka Messi waa kaayay galabtu aad u wax kaleeyo haddaba Leo waxa uu joogaa xilli ciyaareedka kanu 36 gool ayuu ka dhaliyay horyaalka kan ee La Liga waxaana taas ka dhigan tahay ومركي شناد تاريخ uu Messi ka dhalinaya La Liga wax ka badan xilli ciyaareedkii 35 gool tusaale ahaan 2000 wuxuu ka dhaliyay 50 gool arbirigi wax laga qaban karin waa midkan 2000 wuxuu ka dhaliyay horyaalka ma taqaana horyaalkii dhama ayaa wuxuu 2000 wuxuu ka dhaliyay 50 gool ka daray wax laga qaban karo 2000 wuxuu ka dhaliyay 46 gool 2004 wuxuu ka dhaliyay 43 gool 2006 wuxuu ka dhaliyay 37 gool xilli ciyaareedkanu waa kay sii maraya 36 gool marka Messi sidaas ay ku qaaday kabta goolinta La Liga hore sidoo kale waxa uu u qaaday amaba la si cad iska cadayn u qaaday guuleysiga kabta goolinta Champions League laba kab meesha ay ku taala 4 gool buu hadda ka sareeyay Mbappe hal kulan baa u dhiman hadii Mbappe 4 gool u dhali waayana Messi baa ku guuleysanaya kabtii saddexaad xilli ciyaareedka marka odagu isku darsanaya sanadkan kabta goolinta La Liga tan Champions League iyo tan Europe oo dhan marka laba kab way iska xaqiiqsan tahay oo Champions League 12 gool wax soo dhow malaha hadda ku soo qaban karaya La Liga waa ka 6 gool ku qaaday goolintiisa laba kab hadda uu cadahay kabta kalena way iska cadayo 4 gool Mbappe hadii ku raadiyaan xataa ugu yaraan 3 waa dhalin kara war cunugaas duu rabana waa Neymar iyo ku xaabinayaan baaska haday rabaan waa soo shaashabaya waan arki doonaa hadii Mbappe uu Messi bareejay hadaan uu bareejayno hadii Mbappe 32 gool uu leeyahay Messi wuxuu leeyahay 36 gool oo 4 gool buu ka sareeyaa marka Messi xilli ciyaareedkan odagu waa shaqaystayo waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedka kan uu tartamada oo dhan 50 gool ayuu dhaliyay ninka gaaban ee Messi odagu xilli ciyaareed fiican buu qaatay mooyaane Barcelona marada kariday mooyaan odagu xilli ciyaareed fiican buu qaatay war fiiri 3 kab ayuu ku guuleysanaya lagu daray 50 gool oo meel ah 2 koob oo meel ah maajig wax kala buu ahaa xilli ciyaareedka karo Barcelona maskiinta ah tacbaanta ah baa ku xiriirta mooyaane odagu waa wax kale habeenku iga soo ka jaban tahay maba jiriba ninka kale kooxda uu sii wadi kara ma jirto arkanu kooxda war dhiigiisii dhacaanka hoysi waa cuneenba magic 50 gool buu xilliyeedku ku soo xiray goolintii La Liga galabtu sidaa buu gacanta ugu dhigay waana markiisii lixaad uu ku guuleysanayo maadaama maanta Madrid laga badiyay oo Bernabeu loogu badiyay waxa looga badiyay garoonka Bernabeu waxa ka badisay kooxda Real Betis oo Real Betis waa kooxda kaliya xilli ciyaareedkan La Liga garoomadooda ku soo garaacday labada koox ugu weyn Spain ee Barcelona iyo Real Madrid oo Camp Nou iyo Bernabeu ku soo garaaceen Barcelona bay garoonkooda tageen 4 iyo 3 Barcelona lagu soo garaacay maanta Bernabeu ay tageen laweer baa lagu soo garaacay Madrid waa kooxda Khura Betis ee xilli ciyaareedkan garoomadooda ku soo garaacday Barcelona iyo Real Madrid ba ogowna Real Madrid xilli ciyaareedkan tacbaan bay ahayd jugta lagu hayo waan arki doonaa waxa kaga dambe sameeyaan xilli ciyaareedkan Madrid waxa la garaacay 38 ciyaarood horyaalku waxa la garaacay 12 jeer oo kamida 12 kulan ba horyaalku la garaacay markii ugu dambeysay Real Madrid 12 kulan la garaaco xilli ciyaareed gudihii horyaalka Spain waxa ugu dambeysay 1973 sidoo kale master konton gool aliyo Messi waxay ahayd maanta markii lixaad uu xilli ciyaareed ku dhalinaya konton gool waa markii lixaad taariikhda Messi xilli ciyaareedka uu tartamada dhan ka dhaliyo konton gool wax ka badan 2010 wuxuu ka dhaliyay 3 gool 2011 wuxuu dhaliyay tartamada 3 gool 2012 wuxuu dhaliyay 60 gool 2014 wuxuu dhaliyay 58 gool 2016 wuxuu dhaliyay 54 gool 2018 wuxuu dhaliyay 50 gool banooniga dargasaana war waxaana mishaar la siiyaa mooyaane war banooniga dadkan oo kala daacad u ah dadkan mishaarka ku beela dadkan oo kulba lacag la iska siiyaa mooyaane waxaan kale wax ma tarayaan war fiiri nin konton 60 70 ku dhalay sanadkii maxaa argaab ku dhib badnaayay markii lixaad buu xilli ciyaareedkan dhaliyay konton gool xirfadiisa iyo ka badan oo gool waxaaba ku jirta maruu 70 uu la dhaliyay 3 iyo maruu 60 dhaliyaba gaabka ma lagu waxaan ka goynayna